warbixintan waxaa halkudhigeeda la yiraahdaa xiisada siyaasadeed ee Jawaari iyo Khayre xagee saldhigan doonta. kala fadhiga saddexaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa 10kii Maarso ka furmay xarunta fadhiyada baarlamaanka ee magaalada Muqdisho waxaana jiray nuux iyo guuxyo aad u fara badan oo lagu soo kala kariyay dalka gudihiisa iyo dibadiisa muddadii lagu jiray fasaxa baarlamaanka. waxaan ku faraxsanahay inaan maanta oo ay taariikhdu tahay 10ka bisha Maarso 2018 aan si rasmi ah u furo kala fadhigii saddexaad ee labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. balse kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka Soomaaliya waxaa hor yaallay oo laga sugadayay inay ka doodaan qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsan yihiin dib u eegista dastuurka iyo ugu yaraan 10 xeer sharci oo ay xukuumaddu soo diyaarisay. inaan xilkayga u gudanayo isla markaana uu ka mid yahay xeerka jinsiyadda oo ah xeerka doodistiisu ay aad u adag tahay iyo sidoo kale dejinta shuruucda federaalka xadaynta awoodaha maamulka dowrada dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka sharciyeynta nidaamka xisbiyada fara badan iyo qodobo kale waxaana si degdeg ah ugu soo biiray ajandayaashooda xiisada dekada Berbera iyo shirkadda DB World iyo mooshinno kala duwan oo xildhibaanadu kilkilaha ku kala wateen. sidoo kale xildhibaanadu waxay isha ku wada hayeen laba xaaladood oo ku furan xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre kuwaas oo kala ahaa arrinta canshuuraha oo ay soo rogtay wasaaradda maaliyadda oo dood aad u fara badan ka taagneed kala fadhigii labaad iyo sidoo kale khilaafka ka dhaxoogan guddiga dastuurka baarlamaanka iyo wasiirka dastuurka oo lagu soo eedeeyay inuu hortaagan yahay howlaha dib u eegista dastuurka. haddaba kala fadhiga saddexaad maadaama sanad la isku soo barto la soo wada shaqeeyay ayaa sida xildhibaano badan ay qabeen waxa uu noqday kii ugu adkaa ee wajahdo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. dhanka kalena waxa ay sababi kartaa ayaa la yiri inay rumowdo saadaasha ahayd inuu sababo isbedel ka dhaca guud ahaan dalka waxaana iminka u muuqataa in dhabahaasi lagu socdo oo cagaha la saaray kadib markii si lama filaan ah ay tiro xildhibaanaha ay mooshin uga keeneen gudoomiye Professor Jawaari sidoo kalena aad loo hadalayo inuu jiro mooshin kale oo laga sido xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Khayre. mooshinka Professor Jawaari ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalin kadib markii uu baarlamaanku cod aqlabiyada dalka uga mamnuucay shirkadda DB World ee Imaaraadka laga leeyahay kadib markii ay qandaraas la gashay Somaliland si ay u maamusho dekada Berbera. sidoo kale mooshinkan ayaa waxa uu yimid maalmo kadib markii gudoomiye Jawaari iyo maamulka sare ee baarlamaanku ay dowladda Turkiga la saxiixdeen mashaariic lagu dhisayo aqalka baarlamaanka oo ku kacaysa lacag dhan $100 milyan balse isbuucii la soo dhaafay kadib markii xildhibaano mooshin si lama filaan ay uga keeneen gudoomiyaha baarlamaanka ayaa Jawaari waxa uu mooshinkaasi ku macneeyay ujeedada ma aha Jawaari meesha laga qaado ujeedada waxa way anigu marinkii waay oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa baarlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin ama taariikhdii uu soo maray baarlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbigana uu markaa noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisa gudan karin. waxaa dabadeed mooshinka gudoomiye ku-xigeenka Jawaari mudane Cabdiweli Muuday waxaa soo dhacay arrimo isbedel ah oo xawli ku socday sida guddiga joogtada ee baarlamaanka ayaa shir diraa'id ka sheegay in mooshinka Jawaari uu jabay maadaama sida hore loo sheegay ay ahaayeen 107 xildhibaan sidaa daraaddeedna ay iminka ku soo hartay 91 xildhibaan taas oo aan buuxin karin kooramkii loogu talagalay inay mooshin ka soo gudbin karaan hogaankooda. xildhibaanada soo saxay mooshinka waxay ahaayeen 107 xildhibaan waxaa ka noqday 16 xildhibaan waxaa mooshinkii ku soo haray 91 xildhibaan waxaana looga baahan yahay si uu sharci xagga tirada uga noqdo waxa loo baahan yahay inuu 92 noqdo marka maadaama 91 noqday sharciyadii tirada ayuu ku buray. goobtaasi shirka diraa'id lagu qabtay waxaa fadhiyay mudane Cabdiweli Muuday oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka balse saacado kadib ayuu warbaahinta la hadlay isagoo jooga aqalkiisa waxa uu sheegay in mooshinka uu meel maray isagana uu golaha horgeyn doono. mooshinkii laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka oo la ii keenay taariikhdu markay ahayd 14 bishan mooshinkaas sharci ahaantiisa mooshinkaas waxaa ii keenay xildhibaano wuxuuna sharci noqday marka la ii keenay oo aan fiiriyey sharciyadiisina ay dhammaystirantay kadibna aan saxiixay ayuu sharci noqday. waxay noqonaysaa markii koowaad ee mooshin laga keeno Professor Jawaari oo ah gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxayna tahay markii labaad ee uu noqdo gudoomiye baarlamaan balse baarlamaankii sagaalaad ayaa codka kalsoonida kala laabtay laba ra'iisul wasaare Jawaari ma aanay jirin wax mooshin ka keenay xilligaasi
balse ra-iisul wasaare khayre ayaa waxaa loo tiriyaa intii la magacaabay xukuumaddiisu inay ku lug lahayd dhiibistii qalbi dhagax oo gilgishay kalsoonida dowladda khilaafkii hirshabeelle ee xilka looga tuuray madaxweynihii hore mudane cali cosoble xiisadii galmudug ee madaxweyne xaaf uu ku sugtay inuu tareenka kaga dego xilka qaadistii guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir mudane taabid cabdi iyo isku dhacyo kale oo dhex maray siyaasiyiin mucaarad ku ah xukuumadda oo qaarkood sababay dhimasho iyo dhaawac haddaba su-aasha ayaa waxay tahay maxaa lagu soo eedeeyey brofesor jawaari sida ku qoran warqadda mooshinka xildhibaanada ka keenay mooshinka brofesor jawaari dhowr jeerna ay warbaahinta si kala duwan ula wadaageen waxaa guddoomiye jawaari lagu soo eedeeyey qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xilgudasho la-aan caburinta aragtida xildhibaanada iyo eedeymo kale oo culus balse dadka siyaasadda tacliiqiya ayaa waxa ay qabaan inay jiraan arrimo kale oo la qarinayo oo u dhexeeya labada mas-uul xaalkuna uu yahay baroorta orgiga ka weyn gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu muddadii uu hayay xilka golaha shacabka baarlamaanka tobanaad ku kacay falal liddi ku ah dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka oo ay ka mid yihiin ragaadinta geedi socodka dib u eegista dastuurka oo asaasi u ah dib u eegleelida qarannimada Soomaaliyeed. 2 wuxuu si joogto ah u hareermaraa ama marayayba ku dhaqanka xeer hoosaadka golaha shacabka. halka markay taagan tahay brofesor jawaari qudhiisa ayaa isla maalinta shir jaraa'id ku qabtay aqalkiisa waxa uu si toos ah xukuumadda iyo uu hogaamiyay ra'iisul wasaare khayre ugu eedeeyay inay iyadu gadaal ka reexayso mooshinka waxa uu sheegay in xitaa amnigii baarlamaanka ay la wareegeen ciidamo aanan guddoonka baarlamaanka ka amar qaadanin oo ay soo direen laanta fulinta isagoo intaa ku daray in loo baahan yahay in baarlamaanku uu ku shiro meel ka madax bannaan. waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in baarlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee Soomaaliya oo madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshiinadan ayada ay daba joogto oo haddii alla ku ruuxay ujeedadana ay tahay in baarlamaankaasi uusan noqonin mid shaqeeya in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan 100 iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay qalabka siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyay ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay. maalintii xigtay waxaa dhismaha golaha baarlamaanka la wareegay ciidamo ka socda midowga Afrika AMISOM kuwaas oo waajibaadkooda koowaad uu yahay ama ay ka mid yihiin ilaalinta xarumaha waaweyn ee dowladda sida baarlamaanka madaxtooyada iyo meelaha kale ee muhiimka ah. dadka taageera brofesor jawaari ayaa waxay sheegeen in xildhibaanada mooshinka ka keenay ay ku jiraan xubnaha golaha wasiirada kuwaas oo ka tirsan baarlamaanka balse 2 maalmood kadib ayaa waxaa shir jaraa'id ka soo muuqday qaar aad u fara badan oo golaha wasiirada ah oo brofesor jawaari ugu baaqay inuu iscasilo haddii kale ay meel marin doonaan mooshinkooda. ugu dambeyntii brofesor jawaari ayaa ogolaaday mooshinka codka in la geliyo balse waxa uu shuruud ka dhigay in muddo 10 maalmood gudahooda codkaas lagu qaado isla markaana kulanka lagu qabto meel dhexdhexaad ah sida uu hadalka u dhigay. mooshinno yimid ama soo jeedino xildhibaano sharaf leh ay soo jeediyeen oo golaha shacabka ka mid ah oo ay soo dhigeen mooshin kalsooni kala noqosho lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen waa xaq ay leeyihiin waa xaq dastuuri ah waa arrin xeer hoosaadkeena uu ogol yahay waa arrin dimuqraadiyada iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaan waana ku saxsan yihiin inay keenaan in laga qabtana xaq bay u lahaayeen waana la qabtay alxamdulilah. iyadoo xaalku halkaa taagan yahay jawaarina ogolaaday in mooshinka cod la geliyo ayay weli sii socdaan kulamadii ay lahaayeen xildhibaanada ka keenay mooshinka iyo baaqyadii ahaa inuu iscasilo taas oo keentay in taageerayaasha brofesor jawaari su'aal geliyaan sababta loo sugi leeyahay wakhtiga mooshinka haddiiba ay kalsooni ku qabaan inay haysaan cod ku fulan in jawaari daaqada laga tuuro. inkastoo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu aysan marnaba ka hadlin amurahan iyo qalaasaha siyaasadeed ee ka jira dalka ayay dad badan haddana waxay wax iska weydiinayaan sababta uu madaxweynuhu ugu aaminsan yahay isqabqabsiga xukuumadda iyo baarlamaanka ka dhex socda balse aqalka sare ee baarlamaanka ayaa goor sii horeysa sheegay inuu isagu u istaagay xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee ka socda dalka waxa uuna sheegay inuu weli socdo dadaalkoodii isla markaana ay la kulmeen dhinacyada ishaya sida madaxweynaha isla markaana uu madaxweynuhu u ballan qaaday inuu kaalintiisa ka geysan doono qaboojinta xiisadda ka dhaxaloosan brofesor jawaari iyo masar khayre.
guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka dadka qaarkood ma rumaysna hadalka madaxweynaha ka soo yeeray ah in uu u istaagayo wax ka qabashada ama qaboojinta xiisadda u dhaxaysa Professor Jawaari iyo Masar Khayre inay tahay mid ka dhab ah waayo waa goorta la soo warinayo hadalkaasi waa goor ay xeero iyo fandhaal kala dhaceen oo khilaafka uu gaaray heer faraha laga qaad ah iyo in dhinacyada isaya mid waliba taagtiisa ciyaaro lana kala dhintay oo aan la isku urfiyoobeen oo waxa ay leeyihiin dadkaasi waxa ay ahayd in madaxweynuhu mar hore u istaago wax ka qabashada arrintan balse taa beddelkeeda madaxweynaha oo lagu tuhmayo in uu u toog hayay duufaanta soo socota ayaa waxa uu inta aanu dagaalka bilaaban xamaamadiisa u qaatay una guuray wasaaradda gaashaandhigga iyadoo guuristiisana lagu macneeyay inuu ku howlan yahay dib u habeynta ciidamada iyo abaabulka iyo diyaarinta guluf weerar oo lagu qaado deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin dalka taasoo u muuqata mid uu madaxweynuhu dhagaha kaga fureysanayo hadallada iyo doodaha siyaasadeed ee ziidan ee ka socda hareerihiisa si kastaba ha ahaatee kadib markii si weyn la isugu waafaqay in la guda galo codna loo qaado mooshinka laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxaa iminka doodi ka timid qaabka loo marayo cod qaadista iyo halka lagu qabanayo kulankaasi oo lagu kala aragti duwan yahay balse sida ku qoran qodobka 65aad ee dastuurka farqada afaraad guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenadiisa waxaa codayn qarsoodi ah ku doorta aqlabiyadda tirada guud ee xubnaha golaha shacabka ee federaalka ah xilkana kaga qaada codbixin 3 dalool 2 dalool ah oo xubnaha golaha shacabka ee federaalka ah taasoo codka uu yahay markaa cod qarsoodi ah mar haddii ay sidaas tahay hadda waxay ka dhigan tahay in mooshinka ogol ugu codeeyaan 184 xildhibaan markaas oo guddoomiyuhu luminayo kursigiisa balse si uga badbaado mooshinkan waxa uu guddoomiyaha baarlamaanka Professor Jawaari u baahan yahay oo kaliya 92 cod oo maya ugu codeysa mooshinka laga keenay dhanka kale beesha caalamka ayaa iyagana dhankooda walaac aad u xooggan ka muujiyay isqabqabsiga u dhaxeeya madaxda dowladda waxaana socdo isku dayo ay ku doonayaan inay ku xalliyaan khilaafka balse uma muuqdo mid miro dhal noqon karaya maadaama qaar ka mid ah xildhibaanadu ay durbo ku eedeeyeen wakiilka qaramada midoobay Soomaaliya Masar Khayre inuu faragelin ku hayo ku soo beegmay ayaa la oran karaa furitaanka kala fadhiga saddexaad ee baarlamaanka si kastaba ahaatee iminka waxaa soo baxaya warar sheegaya inay socdaan wadahadallo lagu doonayo in lagu baajiyo kulanka cod qaadista oo taa beddelkeeda xaalka in lagu dhammeeyo win-win ama road map cusub oo ay labada dhinac wada saxiixdaan kuna wada shaqeeyaan ayaa la doonayaa waayo dadka hawshan wada waxay cuskanayaan amaba u soo baxday mahmaahdii ahayd laba abeeso kala goosatay midna cad macaan ma helin oo waayo haddii xitaa xaalka lagu dhammeeyo codka oo markaa ra'iisul wasaaraha ama guddoomiyaha baarlamaanka mid ka mid ah oo meesha ka baxo waxa ay leeyihiin lama gaarayo daawada iyo xalka mushkiladda iminka taagan oo waxa ay noqonaysaa in 3 sano ee u hartay dowladda iyo hay-adaheeda kala duwan inay ku dhammaystaan khilaaf xafiiltan iyo isjiid oo marnaba ma dhici doonto in xaaladan baarlamaankiiba kala qaybisay in lagu kala dawoobo oo ay si caadi ah u soo noqoto shaqadii ay dowladda hortaalay iyo waliba tii baarlamaanka hortaalay in si sax loo guto mar haddii ay sidaas tahay waxa habboon ay leeyihiin in xiisadda bannaanka lagu dhammeeyo laguna qaboojiyo inta aan fagaaraha la isla tegin oo aanay gaarin xaniyo taabad waxayna wararkii ugu dambeeyay iminka soo baxaya sheegayaan in hawshan suluxa uu dhinac ka mid ah labada dhinaciisa uu aqbalay wada hadalka halka dhinaca kalena ay laayay iminka wax wara ka soo bixin laakiin la rajaynayo in maalmaha soo socda uu soo gudbiyo aragtidiisa ku aadan wada hadaladani tan iyo intii uu bilowday mooshinka ayaa waxaa si cad u soo baxay inaanay socon dhammaanna ay istaageen howlihii xukuumadda iyo tii baarlamaanka dhammaanna waxa ay xildhibaanada iyo golaha wasiiradu ku wada mashquuleen mooshinkan balse iminka waxaa loo wada dheg taagaya waa sida ay wax u dhici doonaan maalmaha yar ee ka haray ballanta kulanka cod qaadista Professor Jawaari Cabduqaadir Maxamed Faarax Dulyar Hon Cable TV Muqdisho kan qabiil xambaarsanay دستوركي حكمك الدوري قايو عقان سعوني ولها تدوينها عند أرضي كلمي